shirkii 11aad ee caadiga ah muddo xileedka lixaad ee sanadkii shaqada shanaad ee golaha Jaf ee Oromiya ayaa lagu qabtay magaalada Adama. Guulo la taaban karo ayaa laga diiwaangeliyey howlaha lagu xaqiijinayo nabad sugidda iyo ku dhaqanka sharciga sida uu sheegay madaxweyne Shimalis Abdiisa. Madaxweynaha deegaanka Oromiya Mudane Shimalis Abdiisa ayaa sidoo kale sheegay in natiijooyin la taaban karo laga diiwaangeliyey howlaha lagu xaqiijinayo nabad sugidda iyo ku dhaqanka sharciga ee dowlad deegaanka Oromiya. Sida laga soo xigtay warbixinta madaxweynaha ee waxqabadka sanad miisaaniyeedka 2018 ee lagu soo bandhigay shirka golaha Jaf ee Oromiya ee maanta la soo gabagabeeyey, wuxuuna sheegay in shaqada la qabtay si loo hubiyo in si nabad ah ee loo dhammaystiro doorashadii guud ee toddobaad ay caddeynayso rabitaanka hoggaanka deegaanka ah si ay u dhisaan nidaam dimuqraadi ah. Madaxweynuhu wuxuu intaasi ku daray in dadka ay fariin cad u direen dadka ka shaqeynaya musuqmaasuqa iyo arqaladaha iyagoo ka qayb qaadanaya doorashooyin. Shirkii 11aad ee caadiga ah muddo xileedka lixaad sanadkii shaqada ee shanaad ee golaha Jaf ee Oromiya ayaa ka qabsoomay magaalada Adama, gaar ahaan xarunta shirarka ee Galmabagada. Golaha ayaa la sheegay inuu ka hadlay waxqabadka iyo jihooyinka mustaqbalka ee sanad maaliyadeedkan ee dhammaystirmay iyo sidoo kale howlaha nabadda iyo horumarka ee laga qabtay intii lagu jiray sanad maaliyadeedkan iyo in la dejiyo jihooyinka mustaqbalka. Waxaa sidoo kale la ansixiyey warbixinada maxkamadda sare ee deegaanka iyo xafiiska hantidhowrka guud. Waxaa isla markaana la ansixiyey miisaaniyadda dowlad deegaanka Oromiya ee 2019 laguna ansixiyey 704 bilyan oo bir ah, 80 bilyan 220 milyan 67,180 bir waxaa loo qoondeeyey qarashaadka howlaha deegaanka, iyadoo sidoo kale loo qoondeeyey 162 bilyan 670 milyan 695,269 bir oo loo qoondeeyey qarashaadka raasamaalka deegaanka, 459 bilyan 109 milyan 237,551 bir oo loo qoondeeyey akuleynta maamulka degmooyinka iyo magaalooyinka. 2 bilyan oo bir ah waxaa loo qoondeeyey miisaaniyadda deegaanka sida ay ansixiyeen golaha Jaf ee Oromiya. Golaha Jaf ee Oromiya ayaa kulankoodii 11aad ee caadiga ah ee muddo xileedka lixaad sanadkii shaqada shanaad ku soo gabagabeeyey ansixidda magacaabista garsoorayaasha. Golaha Jaf ee Oromiya ayaa soo gabagabeeyey dhageysiga warbixinta xafiiska hantidhowrka guud ee deegaanka iyo ansixinta magacaabista garsoorayaasha. Gabagabadii shirka, golaha ayaa ansixiyey magacaabista garsoorayaasha. Waxaa la ogsoon yahay in 30 ka mid ah 94 garsoore ee maanta la magacaabay ay yihiin haween. Shirkan golaha Jaf ee Oromiya ee sanadkan oo ku aadan iyada oo dhanka kale magaala madaxda dalkeena Itoobiya uu ka socdo shirweynaha ay iskugu yimaadeen 4,000 oo ruux ah iyagoo matalaya shucuubta Itoobiya oo kala duwan, iyaga oo ka tashanaya masiirka dalkeena maadaama ay jirto murano kala duwan. La doonayo in la sameeyo heshiisiinta guud ah iyada oo la sameynayo wadatashiga qaran. Sidoo kale kulanka Jaf ee Oromiya ee sanadkan wuxuu ku beegmay marka laga soo gudbay doorashada qaranka ee guud ee toddobaad oo laga qabtay dalkeena. Maalgashadayaasha diiwaangeliyey ra'aasmaal ka badan 71 bilyan oo bir ah oo ku sugan Diridhawa ayaa helay ruqsadda maalgashiga. Xafiiska maalgashiga ee maamulka Diridhawa ayaa ku dhawaaqay in maalgashadayaasha diiwaangeliyey in ka badan 71 bilyan oo bir ah sanad maaliyadeedkan ay heleen ruqsad maalgashi ah. Isku-duwaha kooxda cilmi baarista mashruuca maalgashiga, diyaarinta macluumaadka iyo horumarinta ee xafiiska Mudane Abarra Mengistu ayaa sheegay 464 maalgashadayaal
ay haysteen ra'asalmaal diiwaan gashan oo ka badan 17 bilyan iyo 304 milyan oo bir ah ay heleen rukhsad sanad maaliyadeedkan iyadoo la raacayo shuruudaha wanaagsan ee maamulku abuuray si kor loo qaado maalgashiga. Wuxuuna sheegay in horumariyaasha helay rukhsadaha warshada, soo saarka, adeegga dhismaha iyo qaybaha beeraha ay abuuri doonaan in ka badan 22,650 fursado shaqo iyo kuwa ku meel gaarka ah marka ay si buuxda u bilaabaan shaqada. Wuxuuna tilmaamay in maamulka uu la socon doono isla markaana taageerayo horumariyaasha marka lagu daro bixinta kaabayaasha dhaqaalaha si ay u noqdaan kuwa wax ku ool ah. Wuxuuna xusay in dhaqdhaqaaqa wax soo saarka Itoobiya ee taageerayso iskudubaridka ah iyo kormeerka oo hirgeliyey maamulka ay awood u yeesheen in ay kordhiyaan wax soo saarka warshadaha, isla markaana ay kordhiyaan alaabadaha wakiilka ah iyo in ay kordhiyaan sarifka lacagaha qalaad. Mudane Abarra waxa kale oo uu tilmaamay in ka badan 50 hektaar oo dhul ah in la siiyey maalgashadayaasha bilaabay howlahooda qaybta maalgashiga ah iyagoo helay rukhsad. Tallaabo lagu xoojinayo hal-abuurka tiknoolajiyada iyo kobcinta xirfadaha dhalinyarada ayaa la qabtay kadib markii la daahfuray xarunta curinta iyo tiknoolajiyada deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Mohamed Cumar, wasiirka xafiiska curinta tiknoolajiyada, ayaa xadhiga ka jaray xaruntani hal-abuurka oo isla maanta martigelisay shirweynaha ICT-ga ee dowlad deegaanka Soomaalida sanadka 2026. Madashan ayaa isku keentay hal-abuurayaal, khubaro, hay'ado dowladeed, shirkado tiknoolajiyadeed, jaamacado iyo daneeyayaal kale si ay uga wada hadlaan mustaqbalka tiknoolajiyada, hal-abuurka iyo isbeddelka dhijitaalka ah ee deegaanka. Shirweynahan ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo dardargelin lahaa hirgelinta adeegga casriga ah ee kor loogu qaadi lahaa hal-abuurka dhalinyarada, loona abuuri lahaa jawi ku habboon maalgashiga iyo kobaca dhaqaalaha ku salaysan aqoonta iyo tiknoolajiyada. Xarunta hal-abuurka oo ah xarun casri ah oo loogu talagalay horumarinta ganacsiga yaryar, cilmi-baadhista, tababarada iyo kobcinta xirfadaha dhijitaalka ah ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta horumarinta nidaamka innovationka iyo ICT-ga ah ee deegaanka Soomaalida. Shirweynaha waxaa lagu soo bandhigi doonaa hal-abuur iyo adeegyo cusub oo dhinaca tiknoolajiyada ah, iyadoo sidoo kale la qaban doono bandhigyo, tababaro iyo kulamo lagu xoojinayo iskaashiga u dhexeeya dowladda, ganacsatada, jaamacadaha iyo bahda tiknoolajiyada.